dalka waxaad tihiin midhaha soo socda mustaqbalka waxaan ku warwareynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaano wadankeena guul wacan cadowka waabto marka wad ku mahadsantahay siyaarada dugsiga sare Ardaale aad noogu timiday gudoomiye Faysal Cali Waraabe ambase musharaxa madaxweyne xisbiga UCUD oo ku soo dhaweynayna cid kasta oo maadartay marka han siyaasadeed leh ama kursiga u sareeyo ee dawladda u tartamaysana anu maxay hay'adeen dadkan uma dooranaya adiguna waxa tahay dadkii looga codeeyay maxay hay'adeen iskuulkan laftarkiisa dadkii looga codeeyay baa tahay doorasho kale hadii la galana dadka looga codeyni doono ayaa tahay waxaan sheegaynaa waxaan su'aal baan gudoomiye ku weydiinayaa ardaydu waxay aad iyo fool ugu yihiin in magaraysa boolisiga xagga siyaasadda waxbarashada iskuulka 800 arday buu ahaan jiray imikana wax less than 200 baa dhikalayn baa ku yar dhacay marka bal istiraatiijiyadda xagga siyaasadda waxaad ka damacsantiin in ardaydu su'aalahaas weydiiyaan dhaweyd waxaan anaa weydiinayaa si ethics iyo sumcadii u hagaagto anaa weydiin kuliyaan gudoomiyaha marka bal in weedha yar fasirtay doonayaan ilaahay electronic-na waxa ku soo diri doona labada waxa u soo dira marka ardayda uga faa'iideysan doontaa laakiin marka su'aasha wax weey anagu waxaan xoog saarnaa laba meelood oo muhiim ah budgetka Soomaaliland la dalayna boqolkiiba 15 tacliintan u gelinayna boqolkiiba 17 waxaan gelinaa caafimaadka qofka hadda caafimaadkiisa iyo cilmigiisa bartid hadda xitaa shaqo wada adduunka u shaqeeyay boqolkiiba 75 ardayda ka soo baxay secondaryada waxaan u diyaar garanaynaa technical schools farsamada gacanta inta kana saamacada kaab farsamada gacanta galena bridge banu sameeyno hadduu doono oo kasna jaamacad kale waa systemka ay dalka Finland ku shaqeeyo iyo Germany waana wadanka labada meel u taxayn fiican habkaas aynu qaadanaa ilaa secondary waxaan ka dhignaa bilaash heerkii saddex hablood wax ka badan lahayna bilaash waan kabena si aanu hablaha tacliintooda ugu dhiirigelin lana waxa weeye inuu population-keena waa ilaa 6 ilaa 5 milyan baa weeye boqolkiiba 6 waa dumar haddaan dumarku wax aan la barin oona shaqaynin paralysis ba dhinac baa ku engega dabada iska diinikii ka dariska iyo isku mid waxay women's states rider lana boqolkiiba 45 xitaa baarlamaanka waa dumar marka saas oo dumarkeena insha Allah taala oo xijaabkooda xiran ودينتooda haysta inay dalkeena la dhisaan bixiyaan workforce marka future fiican insha Allah yeerajeenina nabadana ku diyaariga yaanin dan leh ila qaxin insha Allah saacad ku dhacday saacadkaas wasalaam ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله 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 وين سو سلامي كامبين ما هي كامبين كو دنبه يعني وين سو سلامي هذا وين سو سلامي يا كان رسول السلام عليكم سو ما انا دي هورت سكول دور مس سكول بلاد انا ما wax ka baranayni hal iskuul quraha ima kii ma ruusan sawa dhulkiisa dhan baa dhisoon garan waay anaga waxayna khiyaale iskuul baan ahay marka waxa weeye maanta nasiib baa leeyihiin in caruur badan oo isku daatiin baa jira oo jaartiin oo eheltiin oo chance kaan helay wax barashada ku hesheen
وحكى لما هذا وحوي شابكي والدك بحنيه أنا ما كان يسوق والد ما بيحين شر إلا تشام عادي ما أنت لا يدور أكتر هو يبحث هو يبضن ورته هو احترامه على جاي أبغى أنا هو يدين قصد يبسو يا على جاي هو يهيل بكيل بسو أبينا إسكا غيره قات كان إسكال عليه يا كي أبغات كان إسكال داف لها أبغات إسكال داف لها علماء حلينا قات كتلية ما هو حيلي سا إن شاء الله تعالى وحنا كذا كشيء نقطان كوي وحبرتي أخلاق إلالية تعليل عن أخلاق هنا تعليل ما وين اللي كلا برتا قفك وحبرتي يقفنا وحبرنا أي سيب كارو كلا حطلع أخلاق تعليل عن دين هنا تعليل ما قرآنك كتاب السماء رسول كسر إيمان يا ناس كسر الباب الكفر مياه وكسر حقوق الوالد كرنسا حقوق الشارك برنسا يعني كتاب كله وحكس إلهي نوشة وحكس تام نرش ذهب بينه هاي السنة وكتاب كإله سبحانه وتعالى يصنع بالسوق صلاة النبي العبا هذيك لما قوينا تصاب لودان ساس أوتشو سندون مفروض سنكرسان